توحيدك ومد كليا وتوحيد الألوهية وديدان تهي سوما أسباب بان دبدغيا أديغاسي وحان كاغا فديا أن كاغا باهانهاي أسباب تانانيغو دبدغي دونو أسباب لمتا إنا دبدغتو توحيد يدا لبادو دادغو سمينيسا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا وعظيمنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أولا إلهي أيام هذه أردن أصغناتي الله نو أقلاذي مدك دبنا نستصهر فريسانو سيدا عادة نو أهيد با inaan wax isku sheegno in aan isxusuusino Allah subhanahu wa ta'ala waa in aan ku xirnaano udgoono xabiibkeena wadadii noo jideeyay ba siday hore ba caadi noogu ahayd ayaa waxaan rabnaa maantana in hoogaho haduu Ilaahay uu raali ka noqdo yar in tacliiqino ama aan ka hadalno barnaamijyo baryahan oo aad lagu soo celinaya barnaamijyaha lagu soo celinaya ayaa waxa ah dad ayaa meel intay fariisteen oo dad oo waaweyn ah Ilaahay ba sareeyo weene ayay waxay ka hadlayaan waxyaabaha jaahiliga xitaa aysan ku hadlaynin qofka caamiga ah aan diinta waxba ka aqoonin xitaa aysan ku hadlaynin ayay baryahan damba dad ay dhahayaan cilmiga leenahay cilmi baa baranay cilmigu aad baan u fahanay wax baan daraasaynayna wixii xunna waa naqaan wixii wanaagsanna waynu garan sidaa daraadeeda ayagoo erayada dhahaya ayaa haddana waxay ka hadlayaan waxyaabo haddii su'aal laga weydiiyana aysan ka jawaabi karin. maxay tahay talow waxay dadkaas ay ku hadlayaan miyay ahaayeen kuwa maxayse ka hadlayaan waa su'aal u baahan jawaab. dad baa waxay dhahayaan dadyowga ka hadlayo weeyaane dadkoo dhan ma wada aha waxay oranayaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala aayadii sadaan ku iftitaahno ku furfuranay iyo xadiidka udgoon oo xabiibka yaga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ayaa wuxuu ku hadlayaa tawxiidka. dadyowga waxay oranayaan iyaguna توحيدك ينقسم التوحيد إلى 3 أقسام. توحيدك وقيب سما وحون أقيب سمايا 3 نوع بوقيب سمايا نعوذ بالله. توحيدك 3 بوقيب سمايا 3 ذو محي كراهيت وحي ورانيان توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد أسماء وصفات. نعم وانقرني وان كل جيساني ما دام وحاكو هذا شوالي نقبا حالكا نودا في تشيرينو ديكتا كليان كم مقل جيرني وقلبي جينا سنودا دي جيرين وينو كم مقلني وانو كل جيساني بل وان كل هطلينا نقونا دي جيسا ديمونا لا ينقسم التوحيد بان كل هاي وان كل شبابي توحيد مقيب سمو توحيدك ومد كليا وتوحيد الألوهية وديدان تهي سوما أسباب بان دبدغيا أديغاسي وحان كاغا فديا أن كاغا باهانهاي أسباب تانانيغو دبدغي دونو أسباب لمتا إنا دبدغتو توحيد يدا لبادو دادغو سمينيسا يا لو قادنين لفظ ربي ديدنا ميا لفظ ربي مديدا توحيد الربوبية معناه
lafdu rabb kelimada ma diidani oo rabba ah iyo asmaa'ooyinka magacayooyinka ilaahay uu leeyahay iyo sifaadaadkiisa ma diidani mana inkarsani qof inkarsanna ma jirtaba qof inkirsan ilaahay asmaadiisa iyo sifaadaadkiisa iyo rabbinimadiisa cid inkirsan ma jirto ilaa gaal waxaa ka ahayn laakiin anigu waxaan kaa diidanahe tawxiidka saddexaad u qiibisay uma qiibsano waa mid keliya nacam waa mid qura midkan kuu sheegayo waa tawxiid waa qofka islaamnimada looga yeedhaya waa waxa lagu soo islaaminayo waa waxa eray tawxiid markaa maqasho isla adigan qalbiga ku soo dhacaya waa tawxiidka ka hadlaya markaad dhawaaqi aad maqasho ama magac tawxiid markaa maqasho waa ka ugu horeeya qalbigaaga ku soo dhacaya maxaa yeelay qalbu yudriku alhaqaa'iq qalbigu wuxuu taabtaa xaqiiqada u heleelaaba sidaa darteeda markaa waxyaabihii aad ku hadasheen maalin dhaweeto waagaad ku dhawaaqdeen ilaa hadda shaydaankaadi la yaabanba waayo shaydaankii idinku naxsanba shaydaankii argagaxsanba idinka argagaxayo idinka baqayaba subxaanaka ya ilaahi maxaa leesh yaad ku tartami yaad ku factami adiga tawxiid al-uluhiyya ku micnayni ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu dhahay faclam annahu laa ilaaha ila allah war ogoowo qir oo garo ilaahay mooye ilaaha kale inuusan jirin war tawxiidka horta muxuu ku hadlayaa war tawxiidka micnihiisa muxuu yahay hadda tawxiidka micnihiisa aad garan lahayd ma qiibiyeen waad qiibisay waan kaa yeelayba waa ku dhegaystay waa kugu dheganahe isfurfur adigaa lagaa rabaa inaad isfurfurtide ninka tawxiid ku aaminsan inuu saddex yahe tawxiid al-uluhiyya waa tawxiidka laga hadlayo waa ka oo yani islaamnimada lagu soo galaya ninka gaalka lagu soo islaaminaya ka soo islaaminayo kala soo islaaminayo ku wada dhawaaqayana wuxuu yahay laa ilaaha illa allah qul waxaa tiraahdaa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah wa anna muxamada rasuulullah waxa kelimada ku dhawaaqayo ka muslimka dad soo islaaminayo kan la soo islaaminayo isaguna isla ereyga ku dhawaaqaya kelimada maaha mid labaad laa ilaaha illa allah maxay ka hadlaysaa warta laa ilaaha illa allah waa nafyi iyo ithbaat weeye micnaheeduba waa diidmo iyo sugnaasho laa ilaaha waa nafyi waa diidmo weeyaane illa allah waa ithbaado sugnaasho weeyaane waa wax qiraysa waa wax la qiraya iyo wax laga tagayo la diidayaba lafdu rabbi ama tawxiid ar-rububiyya saad u taqaan waxaan kaaga fadhiyaa nafyi ithbaat inaad ka soo saartid tawxiid asmaa wa sifaat waa inaad ka soo saartid nafyi iyo ithbaat iyaduna sida tawxiid al-uluhiyya nafyi ithbaat u leeyahay ka soo saar hadaad run sheegaysidba waxaad ku hadlaysaa aad isku qiirinayso aad ku qaylinayso hadday sax ay kaa yihiin oo dhab ay kaa yihiin oo adigu aad aaminsan tahay tawxiidyada labada kale dib aa ku keentay nafyo ithbaat ka soo saar waa kaaga fadhiya ka soo saar waan kaa sugayaa ka soo saar lafdu rabbi micnaheedu ma diidani asmaa wa sifaat garawsada hadalka iyaga ma diidani laakiin tawxiidka aad ugu magac darayso aad ka dhigayso nafyi ithbaat ka soo saar ma kaa heli karaa jawaabta qofaa la soo islaami rabaa ashhadu anna maxaa la yidhaha ashhadu anna rabba maa la yidhaha maxaa la yidhahdaa waxa la dhaha ii sheegbo wax la diidayo wax la ogolaanayo lafdu rabbi ka soo saar tawxiid rububiyya ula jeedaa asmaa wa sifaat ka soo saar tawxiidka aad asmaa wa sifaat aad ka dhigayso ka soo saar nafyi ithbaat haddaad xaqiiqaad ka hadlayso dadkiina af soomaali u yar qeexdido af soomaali wax ugu sharaxdido tawxiid asmaa wa sifaat wax la yidhaha baa jiro tawxiid rububiyya wax la yidhaha baa jiro rabbinimada ma diidanin anaga laakiin tawxiid waxuu naqaana laa yanqasimu tawxiid ma qaybsamaba waa midka keliya uu ilaahay war qur-aanka oo dhan tawxiid laba meelay ku soo aroortayba faclam annahu laa ilaaha ila allah iyo inahum kaanuu idaa qiila lahum laa ilaaha ila allahu yastakbir labada waxaa ahay ma haysa adigu ka soo saar lafdu rabbi oo nafyi ithbaat ay ka hadlayso qur-aanka dhexdii ka soo saar
كسو صار أحاديث أمرت أن أقاتل الناس وكان النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ودها وحلي فريا وحلي أمري قل لي أمري إن ضدك لا دجالم حتى إلا يشهدوا كقريان أن لا إله إلا والنفي إثبات دبا يقدر أنت سانكار وكسو صار meelaha ku dhadhawaaqaysa ku qeeqeelinayso warorta meel dhiga waa kuga dhiganahay dad baa kugu dhigano oo waxa weeyaan adi lama rabo yaani had erigan ii qeexa ku dhaay ibar anigu ma aqaano asmaa wa sifaat tawxiid la yiraahdo oo yaani sidaas ay tawxiid ku yihiin iyo tawxiid rububiyya iyo ibar ani lafdu rabb wa aqaana asmaa wa sifaat waa aqaana laakiin tawxiidyada daba saartay ibar inaan ka bartaar waa macallin noqo sheekh noqo wadaadka yaga noqo من علمك حرف فهو أبوك إنك حل حرف كبر وأبها نقاء بها يجا إبر مركا إنك أبر تاروا صح لكن لما روا قبوري بات هاي ودم عاود بات هاي وكان بات وحال لما روا عاي مي قف عاي تما يسجى لقارت هاي عاين كامرة كو عاي ما يانقو waxa ma aqaano man jiraan bahdana mid jiraan aan ku leeyahay aniga man aqaanibo haday jiraan oo iga garawsan tahay iga cilmo badan tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala muxuu dhahay fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ma garanayo ibaradugu adigan kaaga fadhiya jawaabnaadan kaaga fadhiya qulu qawli hada wa astaghfirullah